halkan waxaanu maanta idila joogaa siyaasi aad ugu weyn geega Soomaalida ama la yaqaano caana xildhibaan hore aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ahna qaybta ganacsada ugu imkana weyn ah dhanka diyaaradaha marka lama soo koobi karo macalin soo ahaan jiray ayaa halkan maanta idila jooga waxaan ka wareysanaynaa xaaladda siyaasadda Soomaaliland iyo gobolka Sanaag oo gaar ahaan ka soo jeedo bariga Soomaaliland ama ay raahdo dhammaan suuqa waa siyaasi Soomaaliland oo xildhibaan ahaan jiray marka saadaradeed arrimaha bariga ka wareysan ama sinta wariyadaana bal ka waran madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan wuxuu ku sugan yahay gobolka Sanaag Suudaankiina wuu yimid oo marka la sheegay inuu yahay Suudaanka guud ee Soomaaliland beesha warsagalay laakiin waxay yiraahdeen dhammaan beelaha Soomaaliland dhan buu Suudaan u yahay bal ka waran arrinta adiga bismillaahir rahmaanir rahiim wariyo waa ku salaamay salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadiyo dadkeena daawan doonaba salaanta islaamka ku salaamay sida aad sheegtay Suudaanku waxaan xusuustaa Allah yarxamu Suudaankii beelaha Soomaaliland Suudaankii ciida gale dhabeeye oo markuu soo galo Suudaankaas in hadda Suudaan Saciid fadhiga uga kaco yiraahdo anaa sii hayay jagada macnaha Suudaanka koowaad weeye marka beelaha Soomaaliland waa sandaladda ugu faca weyn lambar 2guna waa sandaladda hadda uu yarku hogaaminayo isna yarada odaygii ka dhaxlay ina dambeeyo ina gale marka sandaladdu waa sandalad fog oo qiimo badan in badanna waa lagu soo mooday maantana wuxuu yimid gobolkii si fiican baa loo soo dhaweeyay oo sharfan madaxweynihina halkaas uu u tagay la isku arkay hawshana way socotaa beryahanna waxa ka socday garad guurti aqoonyahan taliyayaashii wixii iyo dawladdii oo dhan ergaada isugu wada tagtay marka hawl fiican baa ka socota si fiicanna waa la soo afgartay nabaduna waa qaali nabad baa naasna niigale nabad baa la'aan waxba ma socdaan iskuul ma lama tegaayo masaajid lama tegaayo waxbarasho lama tegaayo marka in la nabadeeyo oo tuuristigu socdo oo xitaa gobolkaasina waa gobol ku caan baxay dalxiiska marka wax walba inay sidoodii ku soo noqdaan waan rajaynaynaa meel fiicanna way maraysaa ma la oran karaa Cabdulqaadir ma la oran karaa siyaasiyiintiina ka soo jeeda gobolkaasi waa gabteen maadaama aad sheegtay dalxiis galbari uma joogto dhistaa galbeed ma la oran karaa idinka soo waa dayacdeen gobolka duu buuraa lagu sheegaa dhulbiyo duqura lagu sheegaa daala lagu sheegaa maxaad ka qabateen gobolka aad iyo aad baad u mahadsantahay weriye marba anagu meel bay joogtay meel baan soo joojinay wadada waa anaga isku xidhnay oo sameynay waxaan xusuustaa maalintii xirsi noo keenay xeerka wadooyinka la dhisay mudanayaal fiican oo aan isku aragti ahayn oo aan kulmiye isku ahayn baan ku kala aragti duwanaanay oo yir meeshaas waa 650 kiiloomitir lama gaari karo lamana gaari karo wadadaas oo lagama dhamaanayo marka dalka dhiigbax bay ku tahay ka hadalladaydi maanta waxa kamid ahaa mar hadii wixii ragu kacbay ahayd rabbina aqbalo way rumoobaan tii lagu dhiiray xirsi oo marka wasiirkii madaxtooyada ahaa oo dadaal laga sameeyay oo xoog meeshii waan ku guuleysay wadadina waa taa hadda 12 saacadood 6 saacadood baa loo soconaya hadda raggii naga dambeeyay bay ahayd inaad canaanatide annaga aan canaanan anagu dadaalay tamartayada 120 xeeraan sixinay dalka heer meel fiican baanu kaga tagnay dadaalay anagu afti waxa sheegtaa Suudaanka wuxuu yiri adigana ah Suudaankaagi wuxuu yiri barigii hore waxa la oran jiray ceer gaabo loo badhaafi jiray maanta wuxuu yiri heer hebel bal leeyahay bal ereyadaas asaanka ku hayd ceer gaabo iyo bal imaka sida lagu oranayo warsangali Muuse Ismaaciil ba arintan ka waran in lagu soo kordhay arrin soo korodhay waana laga badbaadi karaa baakhirina waa lagu sheegi jiray maanta heer ceer gaabo iyaga isku tashanaya oo ay soo yimaadeen madaxweynihii gobolka u dhigay Suudaankii uu yimid marka inay iyagu isku tashadaan markii hore waxa ay Suudee iyagu inay isku tashadaan waxay ka soo jeedaan gobolkii xoolaha waa 830 kiiloomitir square waa badii xoolihii macdantii wax walba waa laga helaya marka iyagu inay shaydaanka iska naaraano waxooda wada qaybsadaan oo si iimaanka qabto wada wataan marka hore waxa inta xarreey waa maxay sababaha munaafaqad baa la dhex dhigay waa yacda munaafaqad dad baadeer mashaariic ku qaatay
oo ka shaqeeyey oo ku faa'iiday oo wax ka helay dadkiina barakiciyey maanta laakiin waxay garteen inaanay faa'iido ku jirin inay dalkoodii isku soo noqdaan inaha kale ee ka maqan ee beesha Naalaye Axmed oo iyana insha Allah rajeynayno inay dalkoodii ku soo noqdaan ay caanka ku ahaayeen Jiidali Masagan meelahoodii badnaa daba meel walba ay deganaayeen inay ku soo laabtaan baan rajeynaya dadku isu soo laabtaan business-ku socdo dalxiisku socdo dalxiisku waxa weeye waa waxyaalaha dhaqaalaha fanka ugu badan laga sameeyo gobolkuna wax walba way joogaan hadda qorshe wax shirkada ma haysaado meesha aad geysid iyo qorshayaal bal imka ganacsigaad haysid ganacsiga aan hayo waxa kamid ah Hamid Construction Company Almadu Mineral Company oo macdantiina gobolka Hodan buu ku yahay waxaan rabnaa hadda inaanu share ka dhigno oo dad badan aanu ku wada midowno marka halka la isku leeyahay maatiradu waa macdanay adigu macdanta xataa ka ganacsiin ma Hargeysa macdanta ka barbadha mise wax ka barbadha Snaagti maya Snaag bay horta u badan tahay majority laakiin adigu ilaa 7 ilaa 5 qof oo midba gobol ka soo jeedo dalkeena oo dhan waa hodan macdantu waa ku hodan gooramahan dawlad labada talaabay noo jiro waa ku hodan marka meelo badan baa jira waxaan niibaynaan ka faa'iideysanay oo dalal kale oo dad baynu laabta ku haynaa laakiin inaynu waxa iska saaro inagu waxaana maamulno baa muhiim maxaad markaa imaka weli xagga ma tagtay inta wadiga macdan iyo xasan ka shaqeeyaa imka la shaqada socdaa saaxiib hadda tagaysaa haddaan socdaa suldaankaaga maxaad baaq u diraysaa iyo salaadiinta joogto dhan salaadiinta oo dhan waan salaamayaa madaxweynahan salaamayaa salaadiintan salaamayaa wasiiradan salaamayaa guurtida tagtay baan salaamayaa odayaasha aqoonyahanka dhammaan khayr baan halka hadda ka yara dhaxgalo waxa jirtay hawle ammaan oo ilaa Puntland laftigeedu ka dagaalamayso xooga daacishta laftigeena inaga Soomaaliyaanba khatar bay nagu tahay sheeyahan de wadanka ku soo duulay hadii Puntland la soo dhaafay inaga la soo gal marka bal xaaladda wana gobolkii Sanaag deegaankana waa tahay bal xaaladda ammaan ka waran halkaas hadda aad mahadsan tahay wariye indheer garada tahay waad og tahay maalinta doodinaan dood ka galay markii Soomaaliland ay heshiis kala galeen iyo Puntland sababihi heshiiska u galeen bay kamid ahayd halka marka laga bilaabo waxbay nooga jirto buurtii Almadow baa ku xiran halkaas meel walba la soo maraya laakiin inay nabad ahaato oo dadku isku xidhnaadaan oo la feejignaado oo macdanta dadka ku nool meesha ee degan ka faa'iideystaan baan rajeynaya marka hawshaas way socotay marka heshiiska Puntland iyo Somaliland waa tii la galay laga heshiiyey heshiis socday buu ahaa marka abti hore loo soconaya dalkuna aad iyo aad buu dhaqaaqaya insha Allah dadka qaar baa ka qaylinay dadka qaar ka qaylinaya tifaq baanay lahayn dadka rayigana waa lagu kala duwanaan karaa qof walbina rayigiisa xor buu yahay laakiin anigu waxaan qabaa rayiga maalintaas inay ahay guul ka sarreysa sidaan hore u sheegay oo guul la taaban karaa oo wax badan isu furmayaan dad badan shaqo helayaan dhalinyaradan isku mashquulshay Facebook ku mashquulay dalka soo kala baranayaan meel walba tagayaan marka abti hore loo soconaya waxaan ku weydiinayaa su'aal kale ah otomaad xagaad ku jirtaa xisbigaad ka tirsatay aad ma mahadsan tahay anigii in badan su'aal meetiyay waanigii xisbi samaystay ururkii hanaqaad waanigii sub waanigii isna wax dhaqaajiya oo cataash waanigii isla galay rajo waan soo maray si fiican baan u soo wada shaqeynay marka taageerayaashii aad ku taageersanaa xagaadkiisii waxaan ku dambeynay oo aan hadda u diyaar garoobaynaa taageerayaashii iyo gruubkii tirada badnaayeen hayay inaanu saacadaha soo socda inaanu meel isugu biyashubano wayna noo astaysan tahay kaad gelisay ma kulmiye soo wadani misaka noo qiimaysan tahay kaad gelisay way noo qiimaysan tahay meeshaanu gelaynay kasii hordhici mayno waan intaa waa ka tashanay anagoo isku dhan oo gruubkeedii oo dhan oo aan hogaaminayo oo sheegi doonaa marka ururkaad marka ku dibeysato marka hore halkan oo yarasi anagu ka habaan wax ka soo saaray kaana hadda firiyaan siyaasadda waa ku kala aragti duwanaa waa ina ka baxday marka adeer anigu hawlahayga anaa ogday waan ku sheegay meeshaan u guurayo iyo meeshaan la aadayo maalintaana waad ka soo qayb galay